السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مر لبعض ولا مeel kastoo aad joogtaan adduunka ka joogtaan dalka gudihiisa dibadda soo dhawaada insha Allah mar dhow bilaabi doonaa soo dhawaada asxaabta kale ka raagay in sugayna insha Allah in yar xogaa isla jaan qaadi doonaa mar qura insha Allah waxaan rajeynayaa inaad codkaas si fiican aad ii maqlaysaan بلابنا بارك الله فيكم. وياي بلابنا إن شاء الله بإذن الله الكريم. الكرة حنكون بلابنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين دمانتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامتا إسلامك nabadgelyada ee naxariista xambaarsan ayaan idinku salaamayaa. waxaan la hadlayaa Cabdimaalik Muuse Coldoon waxaana si toos ah adiga daawanaysaan marka muuqaalka la duubayay Facebook-ayga ka boga iyo ka kaleba aan idinka mahadcelinayaa inta timi halkan ayaan ku wadaagayno waqtigan aan idila hadlayo. waxaan ugu horeyn aan ka raali gelinayaa soo raagitaanka aan soo raagay aan ka soo raagay waqtigii aan ballanay sababtoo ah saaka safar ayaan uga baxnay magaalada Burco ku suganahay maanta marka hawlo shaqo ayaan u baxnay goor dhaweyd ayaan soo istaagnay marka waqtigii magaalada ayaan ka baxsanaa saas awgeed waad ku raali ahaanaysaan intaana bilaabin oo kale waxaan sheegayaa insha Allah in waqtiyo dambe oo caawa ay kamid tahay sidaan rajeynayo in 10 habeenimo xilliga magaalada Burco sabti habeenka xad soo galayso amar labaad aan noqon doono toos aan noqon doono insha Allah iyo waqtiyo kale aan idin sheegi doono ogeysiis shalay ayaan bixiyay runtii waxaan ugu talagalay muuqaalkan inaan aan la wadaago dadkii garabkayga ahaa dadkii garab istaagay dadkii wanaagayga jeclaa inaan la wadaago waqtiyadooda oo aanay u arag inaan aan iska ilowsanahay ama aanay qiimo ugu fadhiyeen saanay u arag yani runtii dadkaasi يعني قيمة وين أي أكتر ما كيهين مركز تاي شوغان إن هذوك تهيني إن أنا جاي أنا جوبا وهاوي يعني قيمة وين أي ما هرنتي أي ذي جوفر دان هاد بان ما هرنتي يعني هرت مركز يدي كم عدلنا يا
in badan ma ogi runtii dad badan qof kastaaba si isagu awoodi karayo ayuu ku muujiyay garab istaaga in yaro kooban baan runtii dee aan akhristay ama aan arkay ama aan daawaday ama la iga warramay laakiin runtii ma soo tira koobi karo dad aad u badan oo asxaaba oo meel kasta jooga oo ehela oo qaybaha kala duwan ee bulshada iyo siyaabaha kala duwan ee ay dadku ay xiriirka u leeyihiinba yaari dadku waxa weeye way badnaayeen nooc kasta waxa weeye way lahaayeen koox gaara ma jirto cid gaara ma jirto laakiin aad iyo aad u badan yihiin sida awgeed way ugu adag tahay inaan mid anigu mahad celiyo oo yani lama soo koobi karayo haddii la tiriyo sababtoo dad badan aan ogeyn ayaan ka tagayaa oo inta aan ogahay hadduu doonaan ba iyagu laftooda kaba badiyeyba jazakumullahu khayr ayaan leeyahay ilaahay khayr idinku abaalmariyo رمضان maanta waa 1438 hijriya bisha lixaadina waa 10 waa 2017 waxaan ku suganahay magaalada Burco imikana waxa weeye xilli u dhaxeeya maghrib iyo casar ayaan joognaa waxaa loo diyaar garoobayaa magaaladeedana waxaa looga diyaar garoobayaa inta la waqtiya waxaa looga diyaar garoobayaa afradii ayaa looga diyaar garoobayaa oo afradii baa ayaa lagu jiraa oo yani farxadii afrada ayaa ayaa loo diyaar garoobayaa insha Allah ilaahay farxadda jannadana ha nagu kulmiyo farxadda inuu inaga raali noqdo ha nagu kulmiyo aad baan ugu mahad celinayaa in kastoo xora oo maskaxda ka xora oo dacalada caalamka jooga yani يعني قف كستو حرر aad baan uga mahad celinaya oo aragtidiisa madax banaan ayaan uga mahad celinaya fariintaydu mar kastaba anigoo Abdi Malik Musaal fariintaydu waxa weeye kalgacayl iyo wanaag iyo isjacayl iyo in ay Soomaali ay dhulkooda ilaashato oo aan iyagu is arag is eegin waxay doonaan ha kala ahaadaan midabkay doonaan ha kala yeeshaan beelahay doonaan ha kala yeeshaan deegaanada dalalka waxay doonaan noqdaan laakiin iyagu ma hayso cadow fariinteedu waa taa iyagu waxa weeye waa walaalo is gacan qabanaya iskaashanaya hore u soconaya cadowgooda ayaa barkoodba barka kale farta isugu fiiqay waxaan leenahay farta kala fiiqa idinku cadow isma tiidin cadowgiinu waa cad yahay wuu muuqdaa idinku waxaad tihiin walaalo taas ayaan idin sheegaynaa waxa weeye haddaynu nahay Soomaali meel kasto aynu joognaba fariintaasi waxa weeye waa mabaadi asaasi oo ay tahay inaynu aamino oo ay tahay inaynu ku salayno nolosheena oo ay tahay inaanay marnaba aanay isbedelin aynu wanaageena ka shaqeyno aynu isjacaylkeena ka shaqeyno aynu in badan ayaynu caalamka ka dambeynaa dhinaca maadi ahaan ka dambeynaa aynu gaarno caalamka aynu dhaafno caalamka waxa aynu kaga dambeynaa intaynu barkeena barka kale aynu eegayno aynu isu muuqano inta aynu isu muuqano inagu aynu leenahay waa kan cadowgaygu oo laakiin cadowgana uu kan aanu hayno yahay ka fog u yahay intaas waa inta aynu dib u dhacayno waa inta ay la boobayo dhulka waa inta inaga nasu keenjeedinayo si inaga oo dhan dhulka aynu leenahay loogu fakaro sidii khayraadka looga qaadan lahaa inagoo joogna sidii looga faa'iideysan loogu danaysan lahaa inagoo joogna iyo sidii loola wareegi lahaa inagoo joogna taasina waxa weeye waxay ku xiran tahay sida aynu isu hoos dhigno sida aynu isu dhuligno sida aynu inagoo isu bahdilo iyo sida ay himmadeena waxaynu aaminsanahay sida ay u hooseyso إن شاء الله وحشري دونا طبعا مدة حدنا وحوي وحياة بدونا أيان صار كي وأي تهاي هنا أنا دلوا داعو ورهنتي يعني كلا دوان وحياة كلا دوان أيان رهنتي أنا هيا ومربع عن دوني حرمو عن دتك أنا ولوا داعو أنا نقرأ نسي وذا ديت waxyaabaha runtii aan doonayay inaan idla wadaago aan xasuusto
waxaan ku soo arkay jeelkii aan ku jiray ee Hargeysa maalintii lagu soo xiray waxaan joogay waxaan filayaa dhowr iyo 20 maxbuus runtii yani laha dhowr iyo 20 maxbuus ay ahaayeen dhowr iyo 20 ka maxbuus waxay u dhasheen gobolka ama galmudug ay u dhasheen Soomaaliya ay u dhasheen dhalashadoodu deegaankaas ay maxay ka soo jeedaan intooda badan yani 99% dhalinyarada halka ku jirta waxa weeye in ka badan waa 20 maxbuus ay ahaayeen waxay ku kala xukuman yihiin xabsiga Hargeysa xabsiyo u dhaxeeya 24 ilaa 18 sano ma garanay wixii ka hooseeyay muddadaas laakiin inta garanay 18 20 22 24 ay ahaayeen muddada ay ku xiran yihiin dhalinyaradaas marka waxa weeye codsanayeen waxay doonayeen maxaabiistaasi yani sidii loogu wareejin lahaa xabsiyada maxaa Soomaaliya loogu wareejin lahaa halkaas oo ay goboladoodii iyo deegaankoodii iyo eheladii qaraabadiisa u soo booqdaan oo ay ugu yimaadaan ay ugu fudaato yani mataalibtaas ay dalbanayeen runtii waxyaabahaas ay doonayeen dhalinyaradaasi waxa weeye dhalinyaro loo soo xiray burcad badeednimo lagu soo xiray oo jasiiradda Seychelles ku xidhnaa halka lagu soo xukumay kadibna muxuu ahaayay halkan la keenay xabsiyo kala duwan baa la keenay markii la soo qaadayay qaar waxa la soo qaaday intii ka horeysay 2010 qaarna wixii ka dambeeyay 2010 عندنا قار كوبي تمنكي قار لبيه تمنكي adugu musanadahaas ayaa maxaa la soo qaaday mudooyinkaas la soo qaaday Seychelles baa maxaa laga soo qaaday dhalinyaradaasi waxa weeye aad waxay u doonayaan inay maxaa la geeyo meel ay ka dhow yihiin ehelada qaar ba muddo dheer qaar ba inta ay ku jireen muddada ay ku jireen tan iyo markii la soo xukumay qaar ba la soo xukumay 2009 la soo xukumay ilaa imika ku jira qaar baan 10 sano aan arkay 8 sano aan arkay muddo dheer qaar ba ku jiray qaar baan intaan ehelkooda arag waxay u baahnaayeen in halka loo wareejiyo waa qodobka labaad ay doonayeen waxa weeye ay arkeen ama ay ka cabanayeen waxa weeye maxkamadii ku soo xukuntay jasiiradda Seychelles waa Afrikadaas waxa weeye xukunkii koobaad siday ii sheegeen ambiil may ka qaadan ama sida ay sheegeen ambiil may helin marka waxay u baahan yihiin inay rafcaan qaataan oo yani rafcaanimaduna waxa weeye waa xuquuq u leeyahay maxbuuska la xukuma inuu xukunka lagu rido inuu rafcaan ka qaadan karo marka rafcaan ayay waayeen waxa kale oo ay sheegayaan muddadii xabsiga halkaas waxay sheegayaan in ay ahayd muddada xabsigu 8 bilood sanadkii markii ay halkan yimaadeenna waa sida ay sheegeen ay 9 bilood يعني حبسي maxaa looga dhigay way doonayaan in muddadii hadii la xukumay xitaa miladii ay helaan ambiil ay helaan xuquuqdii maxbuusku lahaa caadiga marka dadkaasi codkoodu طبعا waxa laga yaabaa inaydan maqal laakiin waxa weeye damiirku wuxuu waajibinayaan inaan idin soo sheego aan idin sheego waxay ay cabanayaan iyo waxay tabayaan waajib ay saaran dad badan baa maxaa codkayga dhageysan kara ma oranayo yani maadaama anigu xabsiga ka soo baxay ma oranayo hadii aan ka soo baxay aniga waxba igama gelin ma oranayo laakiin waxaan leeyahay yani waxa weeye waan dareemayaa yani maadaama aan xabsi galay waxa ay dareemayaan ayaan maxaa aan dareemayaa marka sida awgeed waxaan doonayaa inaan arrinka maxaa idila socodsiiyo aad ogaataan maxaa dhalinyaradaas waxyaabaha inay halkaas maxaa ay doonayaan mataalibta waxyaabaha ay doonayaan ay dalbanayaan waa asaas yani waa xuquuq asaasiyo ay tahay in la eego oo la tixgeliyo ay tahay xorriyadda qofka xorriyadiisuna waxa weeye hibo la siiyay maaha hibo qof siiyay maaha hibo ay siisay madaxi maaha hibo ay shacab siiyay maaha qof kastaaba kuwa ha noqdaan ama qeyrkooda ha noqdaan waa xaq asaasiya oo muxuu ahaa ilaahay siiyay marka waxa weeye inuu qofku xor noqdo yani waxa weeye cidna looga daba fadhiisan maayo yani cidna laga bari maayo inuu qofku muxuu ahaa inuu si nabad ku noolaado yani cid ku manaysan mayso oran mayso annaka yani ku manaysanayna inaad muxuu ahaa aad xor ahaatid marka waxa weeye
يعني حقوق بيليهن runtii maadaama ay xiran yihiin in xuquuqdooda hoos loo eego dhalinyaradaas waxay ka soo jeedaan saan sheegay haddii aan maxay khaldayn gobolka yani maxay mudug ay maxay ka soo jeedaan deegaamada maxay mudug ay ka soo jeedaan halkaas ayaan maxay aan filayaa inuu ahaa gobolka ay ka soo jeedaan dhalinyaradaasi haddii aan khaldo macluumaadka aan khaldo meesha ka soo jeedaan dib ayaan maxay idinku soo sheegaya aan idin saxaya laakiin ma doonayo runtii inaan qabiil carabka ku dhufto laakiin deegaan markaynu qof sheegayno iyo si loo garto qof loo garto qofkaasi halkuu ka soo jeeda gobolkee gobol baan sheegaynaa magaalaan sheegaynaa tuulaan sheegaynaa qabiilkiisa waxa weeye yaa inaga filan in maxay inta sheegay dhalinyaradaas intaas ayaan maxay ayaan ku dhaafayaa barakallahu fiikum ama ilaahdee dawlad deegaanka galmudug hada dawlad deegaanka galmudug ayay ka soo jeedaanba ayay ka soo jeedaan intaas ayaan ku dhaafayaa maxaa dhalinyarada aan ku soo arkay qolka waxaan kula jiray saaxiibkay Juraan lagu naanayay Juraan Abdi Tahliil ayaa la yiraahdaa Abdi Shakuur Tahliil buu magaciisa Juraan waxaan kaloo kula jiray gees magaciisa naanaystum baan maalmihii ugu dambeeyay baan maxay ayaan dadka magacyo soo banay laakiin halka waxa weeye waxa la isugu yeedhaa naanayso gees iyo Juraan iyo atomic in la yiraahdo isaguna qol kale ku jiray waxa kaloo maxay daahir rag badan baan maxay meesha maxay aan kula kulanay kuwaasi waxa weeye waa kuwaas aan u soo noqdo mawduucyo kale oo runtii aan dhamaanayna waxa weeye saan idin sheegay xidhmo ayaan doonayaa maxay idin ku sheego aan idin kula wadaago waxyaabahan runtii aan qoray ayaa jira aan ku dulalifay xabsiga ereyo suugaan aan ku sameeyay oo aan doonayo aan maxay aan idin la wadaago insha Allah biidnillaahi kariim marka iyagana ma garanayo inaan nimanka idin la wadaagayo laakiin insha Allah bal haday imkay suura gashana waan idin la wadaagi doonaa haddii aanay suura gelin maxay mar kale ayaan maxay aan idin sheegi doonaa fursad bay ahayd inaad halka qofku markuu waxyaabahan ka faa'iido wax ka mid ah inuu qofku markuu xiran yahay jaanis wuxuu leeyahay inuu wax qoro marka fursad baan ka helay inaan wax ku qoro meesha aan ka faa'iideysto waqtigayga oo aan naftayda isu faaruqo aan mar labaad fikiro si aan maxay dhaqaaq labaad u sameyn lahaa maxay nolosha dhaqaaq labaad nolosha ay u sameyn lahaa عزيمة iyo waxay ku kordhinaysaa inaad noloshaada aad si hagaajisid oo aad saxdid oo aad qoro marisid oo aad wixii aad beegsanaysay aad ku sii socotid ayaad markasta fursad aad ku helaysaa runtii waxa weeye dad niyad jabin ka qaada xabsiyada way jiraan runtii niyad jabina iyo ihbaata igu muridin wuxuu igu riday yani عزيمة igu riday quwwad igu riday inaan maxay hore u socdo ayuu guriday waxaan u mahad celinayaa runtii oo yani wax kamid ah maxay aan dadka aan u mahad celinayo oo runtii meedii baan u dhiganayaa insha Allah waxa weeye cid baan doonayaa u mahad celiyo laakiin waxaan weeyay hadan iyaga dadka bilaabo waxay noqonaysaa in aan taxo dadkii oo dhan laakiin insha Allah bal qaabkaasna mahad celinta iyo xusidaasna in dadka la xuso aan dalban in la xusona iyadana waxa weeye وحوي ويسك في عنتها ويسك في عنتها بارك الله فيكم ولا لدي غالية يعني بني آدم بان هاي أنا جو مدام بني آدم هنا وحوي يعني مليه نلاش شيء دوردن واصح بقولك يا بقول مورن كرو يعني مرنا بقى أنا جو ما مسنيك وما نصيح هذا سيدا نص دوردن هنا يتهاي نلاش شيء دو صح بقولك بقول ما مسني وما نصيح هذا waxaan aaminsanahay inay bani aadan baan hayna wax iga khaldami karaan oo ay maxay si aan wax u arki karo laakiin aragtidaasi ay tahay mid aan dhab ahayn oo laakiin ay aragti kala jirto sababtoo ah bani aadan baan hay aakhirkii marka waa inaad aamintaa inaad bani aadan tahay laakiin waxyaabaha runtii aan ku qanacsanahay waxa weeye inaan waxaan aaminsanahay aan ku faano waxaan aaminsanahay yani aan ku dhiirado waxaan aaminsanahay aan cidna aanan uga haybadaysan waxaan aaminsanahay aan ku socdo waxa weeye waxaan aaminsanahay aragtida aan aaminsanahay inaan ku socdo taas ayaan aaminsanahay aragtida aan aaminsanahay inaan ku socdo taas ayaan aaminsanahay oo yani raali gelinta bani aadamka runtii
إن بدن كما شقيه وحوي هدي لا يسكت ضيا إن ابن آدم للرالي جليه أو أديكو تادي أي كل أحسن تهاي تادي أتكتل الممتد خلط أو تصالحان قريسيد ما دام قريسيد خلط بتكتل الممتد أو si ay qofku kaaga raali noqdo bani aadamka iyo biicada kugu hareeraysan ay raali kaaga noqoto runtii waxa weeye waa khata taasi waa khalad lafteed waxa weeye waxaad aaminsan tahay cidna uga haybadaysan waxaad u aragtid inay sax tahay cidna uga haybadaysan bani aadamka waxa weeye in la raali galiya waa dhugtan aan la gaarin waa meel aan la gaarin waa meel la beegsanayo aan la gaarin in bani aadamka la raali galiyo haddaad isku daydid inaad bani aadamka mar qura raali galisid suura gali mayso sababtoo dadkii waa midabo waa kala duwan yihiin waa sida shanta farood ay u kala duwan yihiin bani aadamku ay u kala duwan yihiin waa min as-sa'b jiddan inaad raali galisaa marka waa inaad ku socotaa tii aad aaminsan tahay taa doonaysid taasi waa taa dalka ilaalin buu inooga baahan yahay waxa weeye dalku maaha in maalmaha munaasabadaha la xuso in calamaan lala soo baxo maaha qura dalku waxa weeye munaasabadaha qura maaha dalku waxa weeye qof kastaaba meesha uu joogo waa inuu ku ilaaliyaa haddii aad wariye tahay waa inaad warbaahin ahaan ku ilaalisaa haddii aad aqoon-yahan cilmi ka mida culuumta aad aqoon u leedahay waa inaad aqoontaada ku ilaalisaa xaggii siyaasadda haddaad joogtid waa inaad siyaasadaada ku ilaalisaa حقي هدات هاي حسبية معارضك وين المعارض لماذا ذلك كو إلى لسا وحوي ذلكي وحوي إلى لين بينو جبهية رنتي وحيابها لو فهمي إن وطن كاللجوء إلى لنيو إن وطن كاللجوء إلى لنيو أيام هاي خلد نقضي أو ضد وحوي سي خلدان لو شيء وطن يبدو وامحي وطن نيمو وامحي وطن نيمو ماها إن أدعد عيديد هر إيهابين وطن نيمو ماها إن المالين قرى لسه بحديد علن كاجا أو أد كحستيد أو أد علن كا يعني هو تيد أما كل بستيد ما أنت قرا معها وحضور لك مساسيدا هدات هاي قف سنة كي أردن تارك الصلاة صلاة كتجا مر الله عليه مر كأي رمضان تمادو إذا هذا هو صلاة تكونية مر كأي رمضان بعدنا صلاة كتجا مر كهدي أد وطني أو هاي ما نقول حسيد وطنك وليبا عادتك كون اسكرها لي جلسيدو عادتك waxaasay jecel yihiin waxa uu dheh wadaninimo maaha marka wadaniyadu waxa weeye waa sida aan idin sheegay waxa weeye waa joogto waa markasta waxa weeye waa inaad diidaa dalka oo la dhacayo waa inaad diidaa dalka oo la boobayo waa inaad farta ku fiiqdaa waa inaad maya tiraahdaa ha ka dooran dalkaaga xisbigaaga ha ka dooran dalkaaga كأد سكو قبيلتين يكوا أد سكو قبيلتين هكذا دلكاجا عد جارة ننتعليسي حيسي قبليسي هكذا دلكاجا وحوي وأين دلكاجا أنا دوجد دورنه وأين النقطة سيدي عمر بن الخطاب كان يدور مع الحق أينما كان عمر وحلو وريق يشري حقه مربى ماشى وحقه تاجين يعني حق هالكنو تشوجا هالكنو تاجين حق هالكنو تشوجا عمر هالكنو تشوجا بمعنى لكن أدوه هذا ترى أنك هالكنو نتاجنا هير هبل مركز أنك أرني كاساس بنو تاجنا أو هير كيجا أيان ما تاجرية يحس بجيجا أيان تاجرية هنقول انصر أخوك ظالما أو مظلوما بمفهوم الجاهلية هنقول إن أدوك جارتيد ولا الكاجا ظالم كأمام مظلوم كسيدي جاهلية دو فسرتي لكن سيدي إسلام كويني أو فكري نقا وحوي dadkaaga iyo xisbigaaga iyo qabiilkaaga iyo deegaankaaga waxa la jiri kartaa markii ay xaq ku taagan yihiin markaan xaq ku taagnayna waa inaad tiraahdaa maya waxa idin la hadlaya Cabdimalik Sheekh Musaal Door waxaan adiga daawanaysaan Facebook-ayga bogga ayaad iga daawanaysaan waan xagga kale ana waxa weeye waan ku share gareeyay halkaasna waxa weeye waad igala socon doontaan insha Allah ka kale شخصي أنا وانكسر قلي دونا كفيسبوك كان بوجا كسمية أصل كأنا مربع انكسر قلي دونا إن شاء الله بإذن الله الكريم وحوي أن وقلت رجلا إن مقال كان أن لو داقو ضدكي جرب كي جها ضدكي وهاي إيدم قضي أو رنتي أنا سوكو بكرين
waxyaabahan doonaya runtii inaan idila wadaago dadka dareenkooda heerka ay ka gaadhay waxa weeye waa dad yani waxyaabaha sheekooyinka soo jiitay way badnaayeen waxa kamid ahaa hooyo la ii soo sheegay anoo xabsiga ku jira oo aan ubad lahayn baa laygu yiri hooyo aan ubad lahayn ayaa waxa weeye meel baa laygu yiri bay joogtay munaasabad aan filayo inay ahay tartan quraan iyo madrasad quraan ayay joogtay marka ubad meel lahayn waxay tiri inta istaagtay anigu ubad ma lihi bay tiri lacag baa la ururinayay lacagna waxa la ururinayay sadaqo ahaan baa la ururinayay waxa tiri $1,000 lacag bay bixisay $1,000 malaynay Mareykan bay joogtaa ma filaya $1,000 inankayga qura iigu duceeyay bay ku tiri Cabdi Maalik Muuse Aldoon ubad ma lihi inanka quraan leeyahay sadaqadaas la baxaysay duceey ugu hesho si la igu duceeyay $1,000 bixisay hooyada ma ilaawi karo haddii xiriirkeeda haysaan hooyada ila soo xiriir hooyada hooyan ka dhiganaya yani muxuu ahaay waxa weeye ma garanayo muuqaalkeeda waa la hayaa baan filayaa waan daawan doona wax xiriir baan la sameeynaa insha Allah hooyadana ila soo xiriirsiya waxa kale oo kamid ahaa dadkii yani aadka ay soo jiitay oo aan doonayay idinkuna qisaskii dhacay aad ila wadaagtaan hooyooyinka kamid ah dalalka Yurub bay joogtaay intii aan xidhnaa inan ilaahay ku arsaaqay oo uu siiyay ubad ay dhashay inan wiil ay dhashay ayaa waxa uu bixisay Cabdi Maalik يعني runtii farxad bay tahay waxaan leeyahay hooyadaas iyo aabahay dhalay waxaan leeyahay ilaahay khayr haydu ku abaal mariyo marka wiilkaas waxa la yiraahdaa Cabdi Maalik ayaa la yiraahdaa waxaan filayaa inay joogto Jarmal ma garanayo ma hubo laakiin xiriirkii marbay aan xiriir ka helay laakiin imka xiriirkii baa iga lumay sababtoo dad badan baa maxay mar qura isoo galaya marka waxa weeye dadkaasna waxa weyn doonaya xiriirkoodan doonaya inaan ma si gaar ah u xiriiriyo ayaan doonay in kasoo aad ay xiriirsantiin kulligiin dad ilmeeyay markii la soo daayana farxad la ilmeeyay maqlay arkay horteydana ku arkay anigu dad horteyda markii ay arkeen ilmeeyay yani waxaan leeyahay jazaakumullahu khayr ayaan leeyahay barakallahu fiikum aad baan ugu farxay marka waan isgaranaynaa dadkaas qaarna isgaranmayno waxa weeye aad iga damqateen yani waxa weeye qiimaad ku leedihiin runtii waxa weeye aad iyo aad baad ugu mahadsantiin aad iyo aad baad ugu mahadsantiin gabayo suugaan baa la soo diyaariyay yani profileka sawirada shakhsiga baa waxa laga dhigtay Cabdi Maalik baa laga dhigtay qoraal la qoray waxa weeye hashtag la qoray meel kasta waxa weeye qof kasta intuu awoodi karay ayuu ku muujiyay garab istaaga yani waxa weeye shakhsiyaad aan xusi doono gadaal ka xusi doono oo aad laga yaabay idinku baad ka filayseen inay garab istaagaan way garab istaageen dhab ahaantii dad aad ka filayseen idinkuba oo aad oranayseen hebel muxuu Cabdi Maalik u garab istaagi waayay runtii waxa weeye way garab istaageen yani ma ha khasab inuu qofku baraha bulshada inuu warbaahinta u sheego wax kastaba yani dad baa jiray hoos ii taageeriyo garabkayga ahaa oo ka shaqeynaya sidii aan xorriyad u heli lahaa oo aydan ogeyn oo ilaahay iyo anuguba aanu ognahay iyo in yaro kooban oo dadkaas waxa weeye mar baan qarxin doonaayo aynu qarxin doonaa hadalhaan oo sheegi doonaa marka insha Allah waxa weeye dadka waxa weeye way sheegi doonaa biidnillahi alkariim munaasabada kale ayaynu sheegi doonaa ma soo koobi karo barakallahu fiikum waxyaabo badan aan doonayeen raado xalqado iyo qaybo ayaan muhaayay doonaya inaan idinka yiraahdo waxyaabihii runtii suura galay inaan xabsiga gudihiisa sugaantii aan ku sameeyo dhowr sugaana jirto aan idila wadaagi doonee waxa kamid ah ereyo aan sameeyay markii la xiray kadib oo aan dareenkayga ku sheegayay oo aan ku muujinayay inaan dalkayga jecelahay oo ay tahay inaan ciidiga xigsan oo aan laygu oran dalka wad ka soo horjeedaa waxa weeye waan jecelahay dalkayga cidinayga ma xigsanayso mararka qaar kood waxa dhacaysa in lagu yiraahdo adigu waxa weeye qaran dumis baa tahay oo dalka ka soo horjeedaa marka ka ku oranaya oo ka xigsanaya adigina uu ku fogeynaya marka dalka inaan laga xigsan ereyadaasi waxa weeye way soo gaareen baan malaynaya saaxiibkay Nimcaan Cabdiraxmaan ayaa ku luqeeyay oo qaaday ereyo aan sameeyay oo aad maqasheen xamaraadideedii xornimada oo hadalkii xabsi baan ku galayo xaalkeenu waa ka bandar xeebaheedii xasuustii ku laabnayd tagiitaan xagaageed ya ku sheegay xaaraan maxaa la igu xirayaa xag jir la iga dhigayaa
لي حنبيا أو لي حجنية dadku xoolo ma ahe xira aad ku oodeen xaq waxaan u leeyahay xaq kastaba uu ka cidmo wadankayga xoog baan xeelaad u jecelahay layga ma xigsanayee xinjir baan u qabaya waa suugaantii ii suura gashay inaan dareenkayga aan ku cabiro oo aan gudaha markii aan xidhnaa aan ku sameeyo oo uu saaxiibkayna si aan ula xiriiray uu muxuu haayay uu ku codeeyo yani codkiisa macaan nimcaan عبد الرحمن أبو مهتسيني سوغان كله وأن حدوني إن الحرمة يدون كل يبقى وكلا وان هيا وأن ندلو ذاك دونا إن شاء الله الرمى بدنا ندلو ذاك دونا بإذن الله الكريم إن شاء الله بإذن الله الكريم وحوي سوى ذا الشراء وحدوني إنه كله حدوني إن أنتي كله ضدك كله أنت محل هذا يجورهن أنتي تاجر سند بان قرب كي قاعد بان هذا لكن أنتي كله iga soo horjeeday lahayd hal xiro 10 sano hal xiro 20 hal xiro hal dilo yani intaana waxa weeye waxaan leenahay waxa weeye saamaxnaakum waan idin saamaxnay afa Allahu ankum yani waxa weeye ilaahay waxa weeye dambigiina ha dhaafo anigu xaqayga waan idin saamaxay wax kasto aad iga qorteen shamaata kasto aad sameyseen weersi kasto aad sameyseen idinku aan waxba ka ogeyn arrimo badan xaqayga saamax baad ka tihiin xaqayga saamax baad ka tihiin saaxiibkay Faysal Ali Waraabe oo yiri حتى وانتوغن لها إنكستو أي كيس محكمات كنا نقول لهاي وحوي عفس يسامح بدي قطعي وأنا أودي كريا إنهم كدعويه حكم كنوع عسكرها ونقولنا يقف كتمصنه هي دعوة مدنيا نروحوا فيصل على ورابه وأودي جوين ووالده لكن وحوي يعني رجاس وكسب حيون لكن إحنا مسني هدان سيدا بقول كل مينانو يعني رجاس وكلانو كسب حين فيصل الله وحوي حاجة جوا كسامح وحمانا وما هيو وحمام وحوي ورمضان كريم إلهي وحكبرنا إنه نسامحه إيدينك كل جين وحكستو ما هي عد كستو أو يجسوا هرشيستي حاجة وحوي عافيسي ومسامح بعد كتير يعني أركتدين أنا ونيدك احترامية أركتدين إجادن كا يقول لي لسان يعني وحوي ونيدك احترامية إيدينكم يقول احترامه أركتدي ده وحوي أنه يسوي دارسنه الرأي والرأي الآخر أركتدا يا أركتدا كله الولد رجيسته عيلو ما باهنا إن ليس عيلو ما باهنا إن ليس علادية لو ما باهنا إن هو بليس قاطر لو ما باهنا وحوي عالم كعمرية إن لا ضوء الله وضع الله أيو مرية كل جن وحندونية كل مركز توقتان صومالي ماشى دونتان توجو يعني تذكر مجا صومالي إما كيفهم يافق صومالي كان قاضي صومالي ده وحوي أو حن ينكويرية يعني نسيرتان وحندوني أنا أقول نقضه كي يعني سكون كيرني ولا إذن ولا ليني يدورني ولالاتهم وأنا أقول أنا الملك لبا ككيني وحوي الله بيدن ولا لي أنا أقول إذن ما ولا لين أنا قلت إلهي أمري إنه شاقي إنما المؤمنون إخوة مؤمنين توا ولا لا تاسن يدنكم هاي يري قف كتاك سهر شيسته وحكسهر شيسنا آيات كعد يورني معها ولا لا dadka oo cadawgeen yeeynaan ku sheegin walaalo kuwa kale inoo cadawa yeeynaan ku sheegin walaalo inagu yeeynaan kala xishoon ereyga Soomaalina yaan laga xishoon waxa way Soomaali ayaynu nahay deegaanka iyo magacyada dalalku waxa way wax magac kale noqon kara laakiin qofku waa Soomaali waxna dadka asaasab caalamkana noo ka yaqaan Soomaali baa lagu oranayaa meesha doontid ka soo jeed Djibouti ka soo jeed meesha doontid ka soo jeed waxa way wax lagu oranayaa Somali سواء كنت هذا جيبوتي كسوتشيت أرجيسة كسوت مقدسة كسوتشيت تشيكتيكا كسوتشيت جارسة كسوتشيت قربها شوكتيت وقت صومالي تاعي صومالي باتاي مركا إلهي كرامة دي صومالي ده سعودي أنك فايديستو فرصة بدن ضد كان كل باتاي سن حبسية ده هالنقطان هو كل باتاي سن شيسيرس هو ما هي شوجا حبسية ده عالم كأورنا ماشي دونا شوجا هو شوجا ليبيا dadkeena tahriibay way tahriibeen wallahi istaay dadkaas aynu maxay la shaqeeyno barakallahu fiikum dadkaas aynu xoreyno ka soo xoreyno cid haysata aynu yani waa arin runtii ina damqaya markaynu aragno yani iyadoo la garaacayo oo ay damqanayaan runtii waxa weeye arrinkaas weena horinaya waxa weeye weenaga ilmaysiinaya gudaha ayaynu ka ilmeynaynaa ayaynu ka ilmeynaynaa marka waxa weeye aynu dadkaana u kacno barkeema barka kale aynu garabstaano bisha Ramadaan aynu gacmaha isqabsano walaal aan ku booqdayna aan soo xasuustay jeelka Bro oo mag loo haysto 18 sanadoodna yani muxuu ahay ninkaana aynu ka saarno
إن شاء الله بإذن الله الكريم وحصول واتي حلقة أن أفوري لهين يحلقة على أفوري لهين قارب ذنوب معي أنا اسكو وقتي نهاي وحلقة مقالة برعو الله وقتيا وإذن كبير ساعات أفريقيا بري وإنك مغلقنا ساعات أفريقيا بري وشنتي يسديدي أفرت مركز أفريقيا بري أنت يلتش وقته وحوي اسكو وقتي بين أفرادي بين وصول واتي يعني حوي وحنا أخرينا دعادي أهيد اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله بإذن الله الكريم وثبت الأجر إن شاء الله ولا ليال أين معي كسرنا بارك الله فيكم أين كسرنا معي أين كافرنا وأنا قال كان ندكيجيا أن مربع أصحابته كشرتان أن إيجيا كانوا حيجا مقضين كوان دلها يكون يتطبقوا وقف ويداون يعني حويات بين كم هذا اللي مدامات معدين عاو إن شاء الله وحن رتيني يا عاد وجو رتيني طبعاً كإلا كوبيت ما كده حدوده طبعاً كهبين نميلا كوبيت ما كده حدث العاوضا حلقة مقالة برعو حلقة أفريقيا بري إن ما هي سواء هذا توس سواء ضد بدن أيان جمعان أو أنا يوسف رجلين أيان دوني بلينا أنا يجان ما هي أين أركان وأين لو ذاقان وأي فرحة دين لو ذاقان مركب حوي رمضان بين كشرنا فرين شعيل يعني أين ما هي أين بحنو أين نديرنو وبحيو وبحبان الدنسينا يا وبح قاطع يعني ما هي مذبذة كلا دون له قاطع يعني وبح كالقعيل قاطع وبح أسانة قاطع وبح ورودي قاطع وبح حدانة قاطع وبح كستو ونكسل ما هي قاطع يجا قدوم بارك الله فيكم بارك الله فيكم وحن ذكر دردام الدعاء داس انت برك افرادك هورنا تلادان اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت فتقبل مني انك انت السميع العليم ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله باذن الله الكريم انت ايان معي كسو جبينيا وانا دنانتين وها مقال كان iga qaadiyay saaxiibkii Cabdiqaadir Cismaan Dubad سنين كل مدورنا ساعة داس وحندلنا هاي لبضيضبا ولا ليال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.